oo gobolka Sool lagu soo booqatay halkan oo gobolka caana dheeyeen ku soo dhaweynaa aad u dhaya inta hadda ka gudbani wali wax daneeyaa aniga horta waxaan ahay aabaha jacaylka father of the love marka wax sano oo ekay facekeeda ka garanaysa jacayl baa saaga dhigay marka xilliga ugu dareed ma ka taabanaya xilliyada kamid ah ayaa gabadh wax ku nool gobolada kamid ah hada wala la saanood bay ku nool gabadhaas anaga gobolka laan joogay haddaan is jeclayn 10 sano gabadha jeclaa oo oran karo way waa ku jeclaa 10 sano jeclaa ha 10 year ma tii dabaano gobolka kale ku noolba waxaan dabcay gabadha waxay iga soo warraba oo jacaylkayga u geeya xagee ku nool markaa la saano adiguna boosaas laakiin garow waan u badnaa istaafurna garow waan ku noolaa garow haddaan joogo jacaylkii shufiga dhigay ma tii dabcay gabadhina fariin u soo dhiibo ciidan ugu soo dhiibaan waay galayd baan arkay halka maraya kamaro yoore macsuumi markaan macsuumaan ku ri gabadhii sagalahay warbixintayda garowan joog galayro waxaan ku ri galayd anigana waxa la markaa saacid magaca barasho wanaagsan qurxay adiga qudhaado waxa tahay madax ilaahay garo okay maadaama saacid ahay sagal iga wargee galaydkana waxa la saxane oo hadaan inii dheerayn way buug baan ka qoray laakiin waa soo koobaya waxaan ku saxano walaalow adaa sabada duulo si xoraan u duuline warkan aan ku siiyo sagaliga gaarsi waa galaydkii sabaday ku nooshahay markaad gaadha saaxi sadana yar salawiye dareemine qoyar sinaha saab salliga ku jiifto aliyaan ixtiraam marka salaatana sagal waxa tiraahdaa wuxuu saacid kugu yiri jacaylka samaysaa seedaha jirkayga iyo sababada iyo feedhaha saarigayga digay jacaylka samaysaa seedaha jirkayga iyo sababada iyo feedhaha saarigayga digay sariir baan duula allah adna sawd macaaniya kabiir raaqan maxaa sagal kugu dhacay galaydkii uu soo tago la saan ugu yiga gabadh sagal warbixintii buu siiyay way maxsuuto gabadh aad u qiimo badan bay haday maxsuutay tani soo dhiibtay waxay tii saxano walaalow ada sabada duulo rabbi ku salaayo warkan aan ku siiyo saacidiga ba gaarsi marka salaada saacid tiraahda sagal waxay ku soo tiri jacaylkan sameeyay seedaha jirkaaga iyo sababada iyo feedhaha sahrigaaga inuu digay saax baan ugu lama socon saac kala bay baxay hada garo sahri ugu baqay yahay iska samar iska samar maayba ya gabadhu waa ka tashata alyaani idhahay waa asiis maaragti adigana waxaan ku leeyahay guul baan ku rajeenayaa waayay dhageyso adiga maxaa sameysay gabadhu ka tashatay wallahi kullay waxay la tahay de waa la dhuti oo de hadii lagu yiraahdo oh my god waxa lagu bahayo waa la dhuti sariirta la jifa marka waa sugi doonaa inta waayo jacaylku waa labada gelin ninkastoo la yiri loo si never 40 waqti ka lumay ku celi god sida waraqalayo jaanis macnaha isdinaynay aan la joogay gobolka Sool inta la joogay jaaniskay waa ka faa'iideysan waay gobolka Sool inta la joogay macnaha gabadhu waa hanan kari waay gabadhu way joogtay albax kala helay walina waa jecla garo wana ku nool marka insha Allah ku soo joogi doonta gabadhaas insha Allah taala barkin haya qurux magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha